runtii waxaa jirta qaabab fara badan oo doorashada lagu galo nidaamyo fara badan annaga dalkeena maanta meesha uu maraya markaan fiirino dagaaladii dhacay iyo amniga qaab waxaa jiray dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay shirkii baydhaba ay ku yeesheen iyo kiigsmaayo lagu ansixiyay qaab doorasho oo lagu heshiiyey runtii tababaro badan iyo seminaaro badanna laga bixiyey barnaamijkaas maanta inuu munaasib nagu yahay oo ah doorashada liiska xiran ama axsaabtu ay ku tartamaan kuraasta kaas ayaa waxaan u aragnay inuu yahay marxaladda hadda aan joogno mid munaasib ku ah dalkeenna kaas ayaan runtii haddaan nahay axsaabta inteena badan aan u ololeynay inaan qaadano oo aan doorashada soo socoto 2020 in qaabkaas aan ku galno oo dowladda annagoo kale duruuftanada ku nool ama naga liita ay doorasho ku galeen doorashadoodiina ay runtii u hirgashay sida Afghanistan Ciraaq iyo meelo kale marka waxaan aaminsanayn qaabkaas inuu munaasib ku yahay maanta dalkeena in uu qaabka doorasho aan qaadano laakiin baarlamaanka aqalka golaha shacbigu kaas ma uuna qaadanin mid ka bedelan oo ah liiska furan ayuu keenay guddiga loo xil saaray kaas ayayna meel mariyeen hadda wuxuu hor yaallaa sharcigu aqalka sare ayaa shalay u ahaa targetkanaga maadaama ay yihiin odayaashii shuyuukhdii aqalkii sare senataradii dalka ay yihiin in ay dal ka fiirsadaan uuna si fudud ku marin sharcigaas in meelo badan ay ka fiiriyaan labada sharci intay isbarbar dhigaan warkee maanta munaasib noo ah inay fiiriyaan ee aan la fiirinin kee aniga iidan ah keen kusoo noqon karaa keliya inaan la fiirinin in la fiiriyo war maxaa maanta dalkeena kee noo kharash yar kee amniga u fiican kee dhib yar kee dadkeenu ay fahmi karaan haddii Soomaali liis dheer inta la soo dhigo magacyo la soo tiriyo Maxamed iyo Cabdi Xasan iyo Cali oo isku wada magac egnahay waxa laga qofka Soomaaliyeed in aqrinta inteena badan ay dhibayso in magacyadeena isku dhow yihiin inuu qof ku wareero qofka uu dooran lahaa in ay gacanta uga dhacdo meelo kale laakiin marka xisbi la soo dhigay meeshaas xisbigaas ayaa leejadan ku tartamaya waxa laga yaabaa qofka xisbigu u socday inuu isla markiiba uu tilmaamo oo calaamadayo dhaho aniga kan ayaan siiyay codkayga marka kaas ayaa runtii munaasib noola muuqda axsaabteena inta badan in maanta dalkeena uu munaasib u yahay marka arrintaasaan shalay ka hadlaynay baaqaasaan u jeedinaynay horeena aqalka golaha shacbiga markuu soo marayna aan u jeedinay shalayna waxaan la hadlaynay aqalka sare oo aan lahayn aad uga fiirsada